Markaan dhinto, kama welwelayo qof i daryeela, sababtoo ah waan ogahay Muslimiintu way u istaagi doonaan inay gutaan waajibaadkooda. Dharka ayay iga beddeli doonaan, way i dhaqi doonaan, karfan ayay igu labisi doonaan, kadibna gurigayga ayay iga saari doonaan, waxayna i geyn doonaan gurigayga cusub. Waa gurigayga dhabta ah, waa qabriga. Dad badan ayaa shaqooyinkooda, ballamahooda iyo wax kasta oo ay hayeen aniga dartay uga soo tagi doona. Laga yaabee in dadkaas badankooda aysan ku fikirin inay hal maalin ila taliyaan ama xumaan iga reebaan. Waxaan ka tagi doonaa furayaashayda, kutubadayda, dharkayga, kabahayga iyo wax kasta oo aan isticmaali jiray. Haddii ehelkaygu ay yihiin dad wanaagsan, way ii sadaqay doonaan si ay ii anfacaan. Waxaad xaqiiqsataa in aysan adduunyadu iga murugo doonin, oo uusan istaagi doonin dhaqdhaqaaqa caalamku. Dhaqaaluhu meeshiisii ayuu ka sii socon doonaa. Shaqadayda qof kale ayaa imaan doono. Hantidayda si xalaal ah ayaa loo qaybsan doonaa. Halka aniga aakhiro lay weydii doono hantidaas halka aan ka keenay iyo sida aan ku soo kasbaday. Shayga koowaad ee iga dhacaya markaan dhinto waa magacayga. Sidaa darteed, markaan dhinto waxaa lay dhihi doonaa aaway maydkay, la iguma yeeri doono magacayga. Sidaa darteed, kuma anfici doonaan ehelkaaga, nasabkaaga, qabiilkaaga, mansabkaaga iyo caannimadaada. Maxaa adduunka ka liita? Maxaase ka weyn maalinta ina sugaysa? Qofka noolow ogow in dadka kaa murugoonaya ay noqon doonaan 3 qaybood. Dad kor kaa yaqaanay waxay dhihi doonaan miskiinkii hebel ahaa wuu dhintay. Saaxiibada saacado ama maalmo yar ayay kaa murugoon doonaan, kadibna waxay u laaban doonaan shaqooyinkoodii, sheekooyinkoodii iyo xitaa qosolkoodii. Dadka ugu badan ee kaa murugoon doona waa ehelkaada, waa dadka aad la nooleed, waa qaraabadaada, waa waalidka, waa walaalka, waa ilmahaada iyo xaaskaada. Isbuuc, 2 isbuuc, bil ama xitaa sanad ayay kaa murugoon doonaan, kadibna waxay kugu dari doonaan xusuusihii hore ee la hilmaamay. Qisadaadii dadka dhexdooda way ka dhammaatay. Waxaa bilaabatay qisadaadii dhabta ahayd. Waxaa dhammaaday oo suulay quruxdaadii. Waxaad ka tagtay hantidaadii, guryahaadii, ilmahaadii, xaaskaadii iyo waalidkaadii. Waxa kuu haray oo keliya waa camalkaadii. Waxaa bilaabatay nolosha dhabta ah. Haddaba aan ku su'aalay, walaalkaygiiyow iyo walaashaydiyey, maxaa u diyaarsatay qabrigaada iyo maalinta aakhiro? Waa su'aal ay tahay in aad maalin kasta isweydiiso. Sidaa darteed, ku dadaal ilaalinta waajibaadka ku saaran, sunnooyinka, acmaasha wanaagsan. Waxaan ogahay in aan waxyaabahan soo sheegay ee Muslimiinta dhammaan og yihiin. Waa marxalad qof kasta oo naga mid ah sugaysa, laakiin dad badan oo inaga mid ah ayaa hilmaamay. Waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo sida Ilaahayba Qur'aankiisa ku sheegay, wadhakkir fa inna adh-dhikraa tanfacu al-mu'miniin. Walaalkayga qisadan dhageysanayow, adiga waxaan kaa codsanayaa inaad la wadaagtid asxaab badan.